الهداية هيربل waa xarun caafimaad oo ka howlgasha magaalooyin badan oo daafaha caalamka ku kala yaala taasi oo diyaarisay daweyn dabiici ah iyadoo la adeegsanayo dawo dhireedka oo ah dawo casri ah lehna garaam iyo weliba tixraac caalami ah. الهداية هيربل waxaa la aasaasay sanadkii 1994 iyadoo xarumaheedii ugu horreeyay laga aasaasay Mombasa, Kenya iyo Zanzibar, Tanzania. ugu dambeyntiina sanadku markuu ahaa 2006 xarun rasmi ah ku yeelatay magaalada Nairobi. الهداية waxaa kale oo ay xarumo ku leedahay dalalka Scandinavian-ka, qaaradda Aasiya oo ay ugu horeeyaan dalalka Khaliijka, iyadoo xaruntu guud ahaan 5 qaaradood ku leh xarumo ajensiya u ah الهداية هيربل. xarunta الهداية hadda waxay ka howlgashaa magaalada Muqdisho, iyadoona adeegyada aad ka helayso ay ka mid yihiin toobin casri ah, masaajka, physiotherapy, daweynta guud sida daweynta brusteedka, sokorta iyo weliba dhiigkarka. haddaba maxamed faarax waa maamulaha الهداية هيربل, ha inooga warramo heerarkii ay xarunta soo martay iyo weliba adeegyadii ay u qabatay bulshada. بسم الله الحمد لله magacaygu waa maxaan faarax maamulaha الهداية meelo badan oo Soomaaliya iyo Nairobi ka shaqeey jirtay ayaa hadda xarun weyn waxaan idinkaga furnay Soomaaliya qaasatan Muqdisho qaasatan iskuuska Baarubax. howlaha aan qabanno waxaa kamid ah toobinta, masaajka, physiotherapy-ga, daawooyinka guud qaasatan daawooyinka oo brusteedka, sokorta iyo dhiigkarka. marka waxaan kugu soo dhaweyneynaa gacmo furan maalinka Khamiista biidnillaahi kariim. dadka oo diabetiga ama infekshinada kaadi baxsadka waxaan ugu talagalnay daawooyin ikraama insha Allah taala hadii la yiraahdo. xarunta الهداية ee magaalada Muqdisho waxay ku taallaa isgoyska Baarubax ee degmada Howlwadaag. wixii faahfaahin inta dheer fadlan kala xiriir ciwaanada shaashada kaaga muuqda.